والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka hore waxaan salaamayaa wasiiradda haweenka, wasiiru dawlaheeda iyo dhammaan wasiirada iyo madaxda joogto ee ugu horeeya gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada, qof walba ee mas'uul ah ee meeshan fadhiyo waxaan ku salaamayaa mansabka iyo maamuuska Ilaahay ku deeqay uu meeshan ku fadhiyo. mar kale waxaan salaamayaa walaalaha, hooyooyinka, gabdhaha Soomaaliyeed ee meeshan fadhiyo. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. aad baan ugu faraxsanahay kulankan inaan ka soo qayb galo. hadda ka hor wasiiradda anaa ka codsaday kulan weyn oo gabdhaha in la qabto. way ku mahadsan tahay wasiiradda iyo mas'uuliyiinta kale ee haweenka inay kulankaas soo abaabuleen oo maantay aan isla joogno alxamdulilaahi tacaala. sida wasiiradda ay sheegtay kulamo kalaan lahaa oo runtii oo horay waqtigaa hoogaa ciriiri igu ahaayo waqtiga aan maqlay baa igu yaraaday. waxaan insha allahu tacaala idin ballan qaadayaa kulan waasac ah oo aan insha allahu tacaala ka soo qayb galo oo kale oo aan ciriiri ugu ahayn. waxaan rajaynayaa inaad iga ogolaataan. jazaakum allahu khayr. sida la sheegay labada wasaaradood baa meeshan ku ballamay inay isugu yimaadaan iyo idinka waxa wada qoseeya oo aan ka wada shaqaynaynana insha allahu tacaala aan ka tashanoon isu sheegno. saad ogtihiin shareecadeennu intay haweenku ikraamtay ama sharaftay ama weynaysay ama ay qadarisay, diin qadarisayu ma jirto ee ogaada horta marka hore waadna ogtihiinbe. maxaa yeelay dhammaantiinna ama badankiinna waxaad tihiin hadda gabdhaha Soomaaliyeed waxbay barteen, dakaatiray leeyihiin, culimay leeyihiin, barofesoray leeyihiin, wax walbay leeyihiin. hadda waxaadan ogeyn idiin sheegi maayo, laakiin waxaan wada hubnaa, wada qiraynaa shareecada Ilaahay inay haweenku sharaftay, sharaftooda kor u qaaday, xuquuqdooda ay kor u qaaday, ay weynaysay. intay shareecadu weynaysay, diinteennu ay weynaysay, diin sidaa oo kale gabadh u weynaysa ma jirto horta aan ogaan. waan ognahay aan bannaanka u soo dhigno qofkaan ogeyn aan u sheegno. qabla shariica nebi moxamed intuusan imaanin gabdhaha say ahaan jireen iyo meeshay mujtamaca ka joogeen waad ogtihiin, iyo sida nebiga sala allahu calayhi wasalama uu kor ugu qaaday xuquuqda ay leeyihiin. markaa horta intaasaa nagu filan. ma nagu filan tahay shareecadeennu waxayna siisay oo xuquuqa? ma nagu filan tahay? alxamdu lilaahi. haddii ay dhacdo gabdhuhu marmar inay wax dareemaan waa laga yaabaa. haddii tafsiirka diinteenna laga xumeeyo ama laga qalloociyo ama si laga yeelo waa laga yaabaa gabadha inay wax tabato, mise maahan? laakiin diinta toosan ee xaniifka ah ee wasatiyada ah ee toosan oo nebi maxamed laga soo gaaray xuquuqdooda way u kafaalaynaysa insha allahu tacaala. tan kale maadaama taas aan haysanno ayaa waxaan rabnaa inaan taas ka wada shaqayno. gabdhaha wixii ka maqan oo xuquuqahoy tabanayaan ay helaan, wixii ilaahay uu siiyey oo haystaanna loo adkeeyo, aan la dulminin. oo hadda meeshaan inta fadhida hadda waan u jeednaa gabdhaha hadda waxay noqdeenba mujtamaca Soomaaliyeed tirada ugu badan waa gabdho, mise ma ahan? iyagaa ugu badan qoys walba markaad fiiriso. bal waxaa la dhihi karaa maanta waxay noqdeen laf dhabarka bacdallahi nolosha iyo dhaqaalaha Soomaaliyeed inay iyaga noqdeen. maanta qoysku ay gabaru biisho iyo kan uu aabbaha biilo yaa badan.
kan gabdhaha badan markii la fiiriyo runtii marka waxay yihiin lafdhabar bay ka yihiin mujtamacan Soomaaliyeed ee aan maanta la noolnahay ama aan ku dhex noolnahay marka waxaan rabaa kullay waqti la niqaashi karo oo su'aal la iswarsan karo oo nagu filan waa la isu heli doonaa maanta ani meel baan u socdo wasiir ku-xigeenka yimid kelimada wasaaraddu ay leedahay hadda wasiir ku-xigeenka jeedin doono Shariif Saalax saasaan wasiiradu isku ogeyn ilaa inaad timaado waayo ballanta baan ku imid waqti dheer maanan haysan iyadan hadda weydiin sheegtay taas markaan ka gudbo xuquuqda bani aadanka iyadana iyo caruur baa sheegay iyaguna inta shareecadu ay weynaysay ama xuquuqdooda u dhicisay ama ay u raadisay anigu ma arag cid kale oo u raadisay iyaduna ma arag ogaada bani aadan marka la yiraahdo bani aadan iska dhaafe xuquuqul xayawaanaad bay shareecadeenu banaanka saaraysaa xayawaanka naftiisa la diidayaa in dhibaato loo geysto waxaad ogtihiin naag dambi weyn gashay oo reer banu Israa'iil ahayd Bukhari sida ku qoran ayaa Ilaahay janno geliyay waxayna ku gashay ay bay aragtay oo meel dhooqo oo biyo uun ka gureen arabka saas ugu taataabanayo oon dartiisa ayga intay waraabisay oo waliba hataa wadaan ma haysane khufkeeda intay ceelkii gashay biyo ugu soo shubtay siisay buu Ilaahay ugu damdhaafo janno ku gashay yiri Nabiga sallallahu alayhi wasallam Bukhari buu ku qoran yahay xadiiskaas xuquuqda hataa bani aadan iska dhaafay tan oo xayawaanaadka hataa shareecadu meel bay saaraysaa bani aadanima hadii la yiraahdo wax shareecada ramidahu ma jiraan xuquuqda bani aadanku uu leeyahay inay daryeesho waxaad garanaysaan Nabiga sallallahu alayhi wasallam inay ishayeen ayaa habeen ciidankiisu soo qabteen markay soo qabteen ninka Thumaama ibn Uthal baa la dhihi jiray gacanta ay ku soo dhigeen masjidka Nabiga ay ku soo xireen Nabiga markuu arkay wuu gartay nin hogaamiye ah oo wuxuu ahaa ugaas abu ahaa bal warrama maxaad haysaa buu yiri Thumaamo war adag buu ku yiri wuxuu yiri in taqtul dha damin wa in tamnun ala shakirin wa in turid al mala fasal tu'ta ma shi'ta buu yiri haddaad dishin wuxuu yiri qof dhiig la dishay haddaad galadaysato oo wuxuu yiri aad abaal i gashatana qof abaal la gashan karaan ahay haddii aad madax furasho doonaysidna wuxuu yiri xoolo waan haystaa sheego waa lagu siinaya inuu islaamaysaa buu yiri islaamay ma yiri anigu lagama yaabo ma islaamay nabigu waa ka tagay waa ku soo noqday kelimadii buu ku yiri tii buu ku celiyay isagoo diidan buu nabiga iska daayay ninkaan ha tagay markuu horta nabiga ka jeestay buu yiri Muhammad waa gaajaysanahay nabigu wuxuu faray hashiisi in loo soo liso hashii nabiga in loo soo lisho nin cadowgaaga ah oo ku dilayay oo gacanta aad ku soo dhigtay hashaada inaad u listo yaa laga helayaa kale yaa marka shareecada xuquuqda markii dambe nabiga isagoo diidan buu iska tago ordo iska sii daayo isagoo waxba qiran waxba ogolaan buu dhaaf faraha ka qaado markii dambe isagaa iskiisu islaamay يعني waxaan ula jeedaa shareecadeenu xuquuq bani aadan haday tahay mid xayawaan haday tahay mid insaan haday tahay mid caruureed haday tahay wax kula mida ma jiro taas markaan ka gudbo waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaas waxay yihiin dhammaanteena inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tagayba inaan u jihaysano inaan ka shaqeyno dhanka ammaanka mismaahan maanta waxaan ugu daran dhammaanteena waa inaan ammaanka ka shaqeyno waxaan hubaa inta haday ammaanka Muqdisho ka shaqeeyaan ciidan hataa uma baahan mismaahan inta waxa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto inta ninba guri buu ka soo baxay Soomaaliya tiradeenu intay la eg tahay inta haday ammaanka ka shaqeynayaan wixii dadkan baabi'inayo umada baabi'inaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto amaan darro oo halista inay magaaladan ka dhacdo insha Allah waan hubaa dhamaanteen inaan u jihaysanahay ammaanka inaan ka wada shaqeyno si aan u baabi'ino cid kasto umadeena dhibayso marka taasna waa kelimada aan ka dhahayo dhanka ammaanka waad ogtihiinoo nabi Ibrahim ba alayhi salaam makuu u duceeyay markuu yiri rabbi jacl hada albalada aaminan wuxuu ka bilaabay
رب اجعل هذا البلد آمنا بهرتك بالله بلد كان إلهه أمان كدق بوير أمان بو إلهي أبريي كدب بوير وارزقه من الثمرات كدب بوير وقتاي كدبوا أرزاق وضلبيه مركي هراء وحو وضلبيه أمان إلهي إنوسي أمان هدان الله يسن أرزاق ذو وحي تاي ماله والإسبوبايا والإسبعايا والإسبعيناي مركا أمان كاسي سجنين عن كوض شقينه ودكتهين هذا وضنك وحو قالي إن أي إسكت عيان دات كان بلايد النقضي أي إسكت عيان أي باللابين شباب يوحي اللمذا وأدوكتي إنه هذا قبل هذا أردن وحاك بلوذي هو القلو ليس قد عني بل ما أركتين قف دتكي أن وحبه هين السجا أو علاش كدو من أيه أو جريها كدو من أيه أو بابين أيه أن وحبه أو قلي تاس مركا يدولو دقو عن ستين إسكت عصو وحارنتي دور في عن كقاتي بلنا قاضي إني كقاضنا يان قبلها تاس aad baan ugu mahad celinaynaa intay ka qayb qaateen wasiirada gabdhaha hogaaminaysa gabdhaha banaadir iyo dhamaantooda waxaan rajaynaa waan aragnay hadda meelaha ay ka socdaan iska xoreynta ay ka socoto gabdhaha waxay la daba taagnaayeen biyo iyo caano iyo hilib bay ciidanku la daba taagnaayeen taasna waxaan rajaynaynaa inaad sii wadi doontaan gabdhuhu aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rajaynayaa dhammaanteena sida madaxweynaha uu amray inaan u wada jeesano dhinaca ammaanka amniga wadankan inaan sugano inaan u wada jeesano ayaan insha Allah taala kelimadayda ku soo gabagabeynaya annaguna idinkama hari doono wasaaradda iyadu waa u diyaar qaybtii loo xil saaray sida wasaaradiinuba ay ugu diyaar noqotay waxaan rabnaa labada wasaaradood oo lagu daray runtii gabdhaha tirada la eg iyo kuwa maqanba oo gacmaha isqabsaday wax weyn inay xaqiijin karaan mise maahan waxaan oo ballanaa insha Allah taala kulamadaas oo kale inay soo laabtaan la tashado la isarko gacmaha la isqabsado waan hubaa insha Allah taala waad guuleysanaysaan waa guuleysanaynaa ummadeena guuleysanaysa wajazaakum Allah khayr